kala ma aha فيديو جام حربا قفل بو إسلامه أما قفل بو صومالي أما قفل بو فيديو يدي داوجر أما قف أن داوجرين حتى إنه معركتي أو كيسات إن وحربا ما أنت إن أنك جارو وح أنت أساسا كجري ومعركتي دحماي كلهم وعن صاحبيال قورول بيا جوب كستا وحيلو يدير الجيل لا وقت ولا أكسل هالكن وهلا البرودكشن muddooyinkii ugu dambeeyay fanka Soomaalidu wuxuu ahaa mid albaabkiisa uu furan yahay taasi oo laga dheehan karo dhambaalada ay hawada soo marinayaan falaaliil mug iyo miisaan balaha oo sheegay in fankii ay isaga baxeen taasi oo marka dhinac kale loo eego ah war aad u farxad badan fanaaniin badan ayaa hore u sheegay in fankii ay isaga baxeen kuwaasi oo qaarkood u digan rogtay oo cagta saaray dhabaha guusha halka qaar kale oo fara badan la arkaya iyaga oo muddo kadib dib ugu soo laabta fankii fanaaniinta Soomaaliyeed ee fanka isaga baxay waxa ugu dambeeyay Maxamed Saciid oo loo garan og yahay BK haddaba waxay leedii helaa falaaladii codka halaasiga lahayd hadde waa falaalad aad u shacbiyad badan marka loo eego falaaliilta Soomaalida waa qaaliladan oo sheegtay in ay fankii isaga baxday gabi ahaanba waxaan muuqaalkan idinkula wadaagi doonaa sababaha dhabta ah ee qaaliladan ay sheegtay inay soo dadejisay ka bixitaankeedii fanka عصيغاس أن وطمات إنا محاربة أدينكنا إلهي نيجو كرب كلا أديك الدعاء يبدعيسين إلهي محاكورات يسوع مارتي يقولنا حريستو دمداف ليجريجو لعفيو أدينكن إلهي دعفيو waa maxay qisada dareenka xambaarsan ee ku gidaameen qaaliladda la isaga baxdo saaxadda fanka Soomaalida maxaa ka jira in qaaliladda ay muddooyinkii ugu dambeysay ku taameysay inay ka toobad keelto fanka oo gabi ahaanba isaga harto maxayse tahay fariilta dabacsan oo ay qaaliladda ay hawada u marisay falaaliilta Soomaaliyeed ee saaxiibada dhowla ah marna ay walaalaha yihiin ee Soomaaliyeed ee weli baaqiga ku ah saaxadda fanka Soomaalida arrimahaasi iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaa muuqaalkan ku dul joogsan doona inta muuqaalkan aan sii gudagelin daawada aan ku xusuusiyo in muuqaalka aad laag saarto si la sheergareyso oo saaxiibada aad la wadaagto si khayrku uu u faafo mahadsanid waqti xaadirkan cidla uma baahna ka sheekaynta magaca iyo masabkii qaaliladda ay ku dhaxlahayd fankii Soomaalida iyo ku luqeylta heesaheedii dhinaca jacaylka ku tacalluqay ee sida gaarka ah saameynta ugu reebi jiray qalbiyada kuwooda jacaylaysan ma aha wax qof walba uu ku sii fikrayay in qaaliladda ay isaga baxda fanka marka loo eego saameynteedii fanka iyo suugaanta Soomaalida balse waxay ahayd arin muddo ahba ay aad ugu taameysay oo uu alla waafajiyay maanta waxa rabaa inaan sidii sheego inaan bataatan wixii la dhahay fan ama ha noqdo fanaanimo aan ku hees aan qaado ama meel aan ka heeso ama maxaan ku raadayay hees damboon qaado inay bataatan halkaa iiga egaatay intaas sano aniga fanka mar hore ayaa nacay laakiin maanta alxamdulillah xilliga ugu dambeeyay oo niyadeyda ay ka soo go'day waliba si cabsi leh uga soo go'day ayay tahay qaaliladan ayaa carabka ku dhufatay qiso aad u xanuun badan oo sabab u noqotay soona dadejisay in fankii ay isaga baxdo qofku orda naftu kula ma tashato naftu tii ahayd kula ma tashato maanta yaad joogtaa bariya lagu wadaa adduunka ilaahay maanta saaka markaa hurdada ka soo kacay waxay adiga saacado ka hor adiga ay ahayd markaan soo kacay wiil baa ay soo wacay wiil markuu soo wacay ugu yiri iblaayo mataqaanaa haa gabar xale meeshii joogtay meesha aniga ka heesay geeskeyga ku ciyaaraysay ilaa baa ku dhaartay anaa heesay iyadana geeskeyga ka ciyaaraysay gabadhii ayaa dhimatay ayuu ugu dhahay wallaahi oo bilaahi oo tallaahi waxay ila noqotay dee waxaan caadi ahayn waan aamini waay ilaa hadda aniga beenku diima sheegayay gabadha waxaa la yiri jirkeedii waa go'ay ma la arkayo
ilaa hadda aanun aaminsanin qalbigayga aad buu u cabsanaya. xalay horta ilaahay ha u naxariisto, adinkana u soo duceeya. go'aanka qaaliladan ayaa ah mid aad u farxad badan maadaama walaasheen qaali ay sheegtay inay ka guulaysatay shaydaan muddana markaa uu uga dhigayey fanka wax aad u qurux badan, iyada oo xustay inaysan dooleen lacag iyo magac midna oo ay ku raadisa fanka iyo waxyaabo la mida oo aan wanaagsanayn ebed, sheegtayna inay doonayso in eebbaweyne beddel kheyr qaba uu siiyo. aysan jiri doonin heesna inaan qaado, ilaahay baan ka magagalay, ilaahay tayda ha ii rumeeyo. aniga shaydaan waa dagaalanay muddo badan, aan dagaalamayna. muddada aan dagaalamayna waxa waaye uu iga xoog badnaa jiray, because wuxuu iga dhaadhici jiray israaqada inaan ka helayo meelaha fanaannimada ah. wuxuu iga dhaadhici jiray inaan ahay inaan helayo lacagtaan u baahdo fanaan haddaan ahay oo fanka ah ku jiro. fankana waa iska dhaafay, ilaahayna waxaan ka baryayaa mar dambe inuusan igu celin, israaqadaa ka heli jirna meel fiican ilaahay kale iga siiyo. qaaliladan waxaa lagu xasuustaa heese dabacsan oo ay aad u jeclaysan jireen badi bulshada Soomaaliyeed, balse waxa ay soo jeedisay codsi dheer oo ay ku dalbanayso in gebi ahaanba bulshada Soomaaliyeed haddii ay ahaan lahayd kuwa taleefanada ay ugu jiraan heesaheedii iyo kuwa akooladooda ku soo bandhigta in ay ka masaxaan oo ay dib dambe loo dhageysan. youtube-kiisa heesteeda ku jirtana aa rabood ku qabataan hadduu u ka bixi waayo xitaa allah ka dhigay youtube-ka raaga. runta idiin sheegaya, hadduu ka bixi waayo qofkii aakhiriya adduunna macfinaya qofkii heesteeda sii daawado oo sii gashto oo shaqo ka sii raadsado oo israaqad ka raadsado oo fiyuus ka raadsado macfinaayo. midda kaleeto qof kasta oo hees aan leeyahay arko inta jecel ee wanaagayga jecel ee maanta ku faraxsan wadada aan qaaday ee islaamnimadu ay ku jirto, waxaan ka codsanayaa bataatan qofkii iga saari waa inaad iga rabood garaysaan. weliba maahane, weliba inaad sida aan u cafinaynin inaad adikuna u habaartaan oo igu habaarteen inuu waxayga xoog hadduu ku haystana xoog allah ka qaado. kuwa leh qalbiyada wanaagsan ayaa kaliya fahmi kara muhiimadda ay qaaliladan u leedahay in aan la dhagaysan oo aan dib dambe loo xusuusan heesaheedii. qaaliladan waxa ay dib u xusuusanaysaa dagaalkii adkaa ee muddo soo jiitamayey ee iyada iyo shaydaan dhex maray, iyo sida mar kasta ay niyadda ugu haysay in mar ul ay ka toobadkeeli doonto fanka, iyo sidii markaa ay haatan falaaliin iyada la mid ah ay ugu taamayaan in berito ay ka toobadkeeli doonaan, ayaga oo meesha ka saaraya ama ilowsan in berito ay ka soo sukamari karto geeri. fanaaniinta gabdhaha iyo wiilasha fanaaniinta Soomaaliyeedna waxaa leeyahay fanku waxaar laga gaara ma laha. lacagta adduunka dad ka heshid xitaa meelna kuma gaartid. ugu dambeyn qaaliladan oo ahayd fanaanad weyn saameynna ku lahayd fankii Soomaalida ayaa taageerayaasheeda ka dalbatay inaysan uga harin xagga fanka oo kaliya, balse ay u soo raacaan dhinaca wanaagga. aad shalay ugu taageeri jirta fanaannimada, maanta waxaad ugu taageeri kartaa walaaltinimadaada, jacaylka walaaltinimo. qofkii si personality ee ku jecel ama si caadi ku jecel waa qofka wanaagaaga jecel. ma fahanteen? shalay haddaad fanaannimo igu daawi jirtay ama aad igu taageerisay, maanta waxaad igu taageeri kartaa walaashaada. haddaba haddii aad muuqaalkan ilala dhammaysatay daawade laagi loo saar oo sii sheergaray si khayrku uu faafo. mahadsanid.